xaflad ballaaran oo lagu xusayay kowda Luulyo maalinta xorriyadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Stockholm kaasoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Stockholm iyadoo qodbooyin kala duwan ay halkaas ka soo kala jeediyeen qaybaha ay bulshadu ka kooban tahay. intii xafladani socotay ayaa si isku mid ah uga wada hadlay marti sharaftii halkaasi ka qudbeenaysay kuwaasi oo diiradda saaray inay muhiim tahay adkeynta midnimada Soomaaliyeed ayadoo sidoo kalena ka hadleen taariikhdii halgankii gobondoonka waxaana sidoo kale loogu duceeyay xubnihii ururkii SYL. haddaba qaar ka mid ah qodbooyinkii goobta laga jeediyay waxay ahaayeen sida tan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مدني الأمر ولا ريال وقرأت مركه هراء وحن كعذر دارنا نقولع وقت كبير ونقول حي ظروف أوجد أسيء شيء أرنتا وحن جودهان أنيجا يا صاحب ذي ذا أوركا أو برنامج كان سوق بقالي وحيد الله إنه يكرر لنا برنامج كون هو دفرية هاي عاوة صدّن صنايع فرتنية سنة حوالي مسكحة دوا وعلي دورنا كسودو هذا كرر للنقدنا مرة بعد انت ير دبو دعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركا حريته وآدي بي هو نكسنتهاي حرية اسمر كده في كنا على وضعي ما انت مكان مقطع حرية داسي هرونت هدي عنا هاي ومدى صوماليات حريته وحي هذا هاي wax lagu yaqaan ay leedahay koow waxay leedahay qofka oo jeclaada dhulkiisa xubul wadaniyada waxa weeye waa asal kamid ah usuusha qof kasta oo ilaahay dhulka dushiisa uu ku abuuray marka insaanku daa'iman wuxuu jecel yahay dhulkiisa inuu ku noolaado una jeclaado. guuradii Soomaaliya ee 53aad waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. waxaan rajaynaynaa in ay noqoto sanad guuradii ugu wanaagsanayd oo wanaag uu ka bilowdo meesha ku go'ay ay ka sii socoto maanta iyo inta Soomaali wax la yiraahdo adduunka ku nool yahay anoo rajaynaya inay noqoto milyan sanadood oo soo socota. waxaan idin leeyahay maalinta Luulyo la yiraahdo waxa weeye maalin ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u baahan tahay inay kaliya xusin laakiin ay qalbiga ka xusto. inaan xusno cunto cunno boodboodno buraanburno kaliya maaha waa inaan qalbiga ka xusnaa calankaas buluuga aynu helay wadankeennii baa xoroobay dadkeennii baa jiritaankii Soomaaliya ayaa soo baxay. waqti kooban baan kelmadayda xusuusinayaa walogtiin maalintan kowda Luulyo qaymaha ay leedahay la isweydiin maayo waa maalin qaali ah waa maalin loo soo rafaaday oo dhalinyaradii Soomaaliyeed waagii hore la baxday SYC markii dambena SYL u gediday oo isticmaalka khiyaanto oo SYL ka dhigtay Somali League weeye SYL Somali Youth League dhalinyarada Soomaaliyeed ururkeeda weeye kaasoo lagu soo caanamaalay lagu soo shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed midaysay waxa kale oo macno weyn leh oo dhalinyarada hadda inaan xusuusiyo jeclahay leegadu dalka Soomaaliya gobol kasta
halla joogee way wada gaadhay. waxaa halkan daawadayaal lagu soo gabagabeeyey xafladii 1 Luulyo oo loogu talagalay in lagu xuso calanka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed. caawa waxaa lagu xusay magaalada Stockholm ee dalka Sweden, waxaana dadkii ka soo qayb galay dhammaantood ay muujiyeen shucuur aad u sareysa iyaga oo dhammaantoodna soo hadal qaaday midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliyeed iyo in dadka shacabka Soomaaliyeed ee meel walba ay ku dhaqan yihiin ay ku midoobaan calankaasi quruxda badan ee dalka Soomaaliya uu leeyahay. wariye maxamed yaasiin xaaji cagmadhige TV-ga caalamiga ee Karlsson magaalada Stockholm.